Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada muuqaalka maanta waxa uu ku saabsan yahay 10 shirkadood ee ugu qaalisan adduunka. Shirkadda koowaad waa Apple. Apple waxa ay ku taalaa California, dalka Mareykanka. Shirkadda Apple waxa ay soo saartaa softweerada, waxa ayna qaabaysaa softweerada iyo electronicska sida moobilka caqilka ah ee iPhone, tabletka, iPad iyo TV-yada Apple. Sidoo kale waxa ay soo saartaa saacadda Apple Smartwatch. Sidoo kale waxa ay soo saartaa softweerada caanka ah ee Mac OS oo loo isticmaalo kombiyuutarada Apple-ka iyo iOS oo loo isticmaalo iPhone-nada Apple. Shirkadda Apple waxa aasaasay Steve Jobs, Steve Wozniak iyo Ronald Wayne Abriil 1976. Shirkadda Apple waxa ay ku tilaabsatay horumar aad u ballaaran oo waxa ay gaartay shirkadda ugu qiimaha badan adduunka. Shirkadda Apple qiimaheedu waxa uu gaarayaa $182.8 bilyan oo dollarka Mareykanka, halka faa'iido ahaan ay u soo xarooto $48.35 bilyan oo dollarka Mareykanka. Google waa shirkadda labaad ee ugu qaalisan adduunka. Waxa ay ku taalaa dalka Mareykanka, waxa ayna qabataa xayeysiinta online-ka iyo barta raadinta. Shirkadda Google waxaa la aasaasay 1998 waxaana aasaasay Larry Page iyo Sergey Brin iyagoo dhiganayay jaamacadda Stanford University. Shirkadda Google waxaa la aasaasay 4 Sebtembar 1996 balse waxa ay soo shaac baxday 19 Agost 2004. Shirkadda Google waxa u shaqeeya 85,050 shaqaale. Google waxa hoos yimaado shirkado waaweyn oo kala ah Gmail, YouTube, Google Chrome iyo Google Maps. Google waa shirkadda labaad ee ugu qaalisan adduunka. Qiimaheedu waxa uu gaarayaa $132.1 bilyan oo dollar, halka faa'iido ay soo xareyso $31.15 bilyan oo dollar. Microsoft waa shirkadda saddexaad ee ugu qaalisan adduunka. Fadhigeedu waxa uu yahay caasimadda dalka Mareykanka ee Washington DC. Microsoft waxa ay horumarisaa ama ay soo saartaa softweerada loogu isticmaalka badan yahay adduunka ee Windows, kaasoo uu ku shaqeeyo kombiyuutarada. Microsoft sidoo kale waxa ay soo saartaa softweerada loogu isticmaalka badan yahay adduunka sida Windows iyo Office. Shirkadda Microsoft waxa aasaasay Bill Gates iyo Paul Allen. Microsoft waxa u shaqeeyo 131,300 oo shaqaale. Microsoft waa shirkadda saddexaad ee ugu qaalisan adduunka. Qiimaheedu waxa uu gaarayaa $4.9 bilyan oo dollarka Mareykanka, halka faa'iido ahaan ay u soo xareyso $30.67 bilyan oo dollarka Mareykanka. Facebook waa barta keliya ee loogu isticmaalka badan yahay adduunka. Facebook isticmaalkiisa waxaa la bilaabay 4 Febraayo 2004. Facebook waxa aasaasay dhalinyaro dhiganaysa jaamacadda Harvard University oo kala ah Eduardo Severin, Dustin Moskovitz, Mark Zuckerberg, Chris Hedges. Facebook waxa hoos taga 2 shirkadood oo waaweyn oo kala ah Instagram iyo WhatsApp.
Facebook waa aaladda keliya ee loogu isticmaalka badan yahay adduunka, waxaana isticmaasho 1.2 bilyan oo dad ah, waana 3 meelood meel dadka ku nool adduunka. Facebook waa shirkadda afraad ee ugu qiimaha badan adduunka. Qiimaheedu waxa uu gaarayaa 94.8 bilyan oo doolarka Mareykanka, halka faa'iidada ay soo xareyso uu yahay 15.93 bilyan oo doolarka Mareykanka. Amazon waa shirkadda shanaad ee ugu qaalisan adduunka. Amazon waxa ay ku taalaa dalka Mareykanka. Amazon waxaa la aasaasay 5 July 1994, waxaana aasaasay Jeff Bezos. Amazon waxa ay qabataa xayeysiinta ganacsiga ama inaad wax ku ganacsatid online market. Amazon waa shirkadda lixaad ugu qaalisan adduunka. Qiimaheedu waxa uu gaarayaa 70 milyan oo doolarka Mareykanka, halka faa'iidada uu yahay 3 bilyan oo doolarka Mareykanka. Coca-Cola waa shirkad soo saarta cabitaanada aasidka, waxa ay ku taalaa dalka Mareykanka. Coca-Cola waxaa la daahfuray 1886, waxaana daahfuray John Steve. Shirkadda Coca-Cola waxa ay ka shaqeysaa 200 oo waddan oo adduunka. Coca-Cola waa shirkadda 7aad ee ugu qaalisan adduunka. Qiimaheedu waxa uu gaarayaa 57.3 bilyan oo doolarka Mareykanka, halka faa'iidadeedu ay tahay 1.28 bilyan oo doolarka Mareykanka. Samsung waa shirkad soo saarta moobilada Samsung-ka iyo elektaroonikiska. Shirkadda Samsung waxa ay ku taalaa South Korea, waxaana la aasaasay 1938, waxaana aasaasay Gerardo Lee Byung-chul. Shirkadda Samsung waa shirkadda 8aad ee ugu qaalisan adduunka. Shirkadda Samsung qiimaheedu waxa uu gaarayaa 47.6 bilyan oo doolarka Mareykanka. Walt Disney waa shirkad soo saarta filimada, waxaana la aasaasay 1923, waxaana aasaasay 2 walaalo oo lagu magacaabo Roy Disney iyo Walt Disney. Disney waa shirkad soo saarta filimada. Walt Disney waxa uu shaqeeyaa shaqaale 199,000 oo shaqaale ah. Walt Disney waa shirkadda 9aad ee ugu qiimaha badan adduunka. Qiimaheedu waxa uu gaarayaa 47.5 bilyan oo doolarka Mareykanka, halka faa'iido ahaan ay u soo xareyso 9 bilyan oo doolarka Mareykanka. Toyota waa shirkad soo saarta baabuurta, waxa ay ku taalaa dalka Japan. Shirkadda Toyota waxaa la aasaasay
Agost 27, 1937 waxaana aas-aasay Kijuru Toyota. Sidoo kale shirkadda Toyota waxay soo saartaa kombiyuutarada loo yaqaano robotka iyo mishiino casri ah. Shirkadda Toyota waa shirkadda 9aad ee ugu qaalisan adduunka, qiimaheedu waxa uu gaarayaa $44.7 bilyan oo doolarka Mareykanka. AT&T waa shirkad bixisa adeega telecommunication ama isgaarsiin. AT&T waxaa la aasaasay 1877 waxaana aasaasay Alexander Graham Bell. Shirkadda AT&T waxaa u shaqeeya shaqaale gaaraya 273,000 oo shaqaale ah. Shirkadda AT&T waa shirkadda 10aad ee ugu qaalisan adduunka, qiimaheedu waxa uu gaarayaa $41.9 bilyan oo doolarka Mareykanka, halka faa'iidadu ay tahay $29.450 bilyan.